taariikhda oo dhan waxaa jiro cudurro badan oo dilaacay oo caan ah kuwaas oo sababay masiibooyin badan balse maanta muuqaalkeena waxaan ku soo qaadan doonaa cudurkii ugu dhimashada badnaa taariikhda bini'aadanka ee haddii aad doonaysid ka bogasho wacan bubonic plague waa cudur faafa oo halis ah oo ay keento bakteeriyada loo yaqaano Yersinia pestis qarniyadii la soo dhaafay cudurku wuxuu dilaacay dhowr jeer xilliyo kala duwan kaasi oo galaaftay inta u dhaxayso 10 ilaa malaayiin qof adduunka oo dhan si kastaba ha ahaatee dhibaatooyinkii ama burburkii la sheegay qarnigii 14aad oo sidoo kalena loo yaqaanay the black days dhimashada madow ayaa ahayd mid ka mid ah masiibooyinkii ugu xumaa ee bini'aadamka soo maray kaasoo dilay in ka badan 25 milyan oo qofood oo ay ku jiraan 3 meelood meel ka mid ah dadkii ku noolaa xilliga Yurub. Tani waxay ugu dambeyntii keentay in karantiilka loo isticmaalo as the primary public health. Cudurkani bubonic plague wuxuu dilaacay in ku dhow 3 mar oo kala duwan ayuu adduunka ka dilaacay. Dilaacii ugu horeeyay wuxuu ahaa sanadkii 541 ilaa 549 AD wuxuuna ka dilaacay Aasiya, Afrika iyo Europa. Taasina waxay sababtay dhimashada in ku dhow 15 ilaa 100 milyan oo qofood. Dilaacii labaad wuxuu dhacay sanadkii 1346 ilaa 1353 wuxuuna ka dhacay Yurub iyo waqooyiga Afrika. Wuxuuna galabsaday ama oo sababsaday in dhimashada in ku dhow 75 milyan ilaa 200 oo milyan oo qofood waana kan loogu magac daray the black days oo ah dhimashadii madoobeed. Dilaacii saddexaadna wuxuu dhacay 1855 ilaa 1912 adduunka oo dhan ayuu ka dhacay laakiin inta ugu badan wuxuu ka dhacay China iyo India. Wuxuu sababsaday ama sababay 12 ilaa 15 milyan oo qofood dhimashadooda. Calaamadaha bubonic plague waxaa ka mid ah qandho degdega, madax xanuun, qarqaryo, awood yari, sidoo kale barar iyo xanuun oo ku yimaado qanjirada qaasatan kilkilaha iyo qaybtan hoose ee lugta halkaas aad arkaysiin waaye. Sidoo kale infectionka sanbabada iyo matag oo dhiig ah. Ka hortagga iyo daaweyntiisa si looga hortago waa in uu qofka ka fogaadaa xayawaanada nool ama kuwa dhintayba. Sidoo kale inuu isticmaalo sunta cayayaanada, in uu xirto dharka ka hortagga iyo gloveska gacmaha. Sidoo kale meesha uu ku nool yahay markasta waa inay nadiif ahaataa. Sidoo kale waa in qofku uu raadsadaa daawooyin si degdeg ah haddii uu saameeyo cudurka. Sidoo kalena waa in uu isticmaalaa antibiotic aad u sareeyo ama qalajiyaal awood badan. Waana in uu raacaa tilmaamaha bixiyaasha daryeelka caafimaadka. Cudurka plague ayaa dilo 30 ilaa 90% dadka uu ku dhacay. daawo haddiisan qaadan 10 maalmood gudahooda ayuu kaga taqlusayaa. Laakiin dadka daawooyinka antibiotic si degdeg ah u qaato qatartiisa ayaa hoos ugu dhacdo ilaa 10%. Sida ugu wanaagsan ee looga hortagi karo faafitaanka cudurka bubonic plague ayaa ah in laga fogaado la tacaamulka xoolaha nool iyo kuwa dhintay iyo in la isticmaalo daawooyinka cayayaanka ee looga hortago iyo taxadiro kale sida horeba u soo xusnay. Halkaas ayuu noo egyahay muuqaalkeena. Waxaa inoo balana muuqaalada xiga hadduu Alla idmo. khayr badan.